gudiyada arrimaha dibadda ee labada aqal ee baarlamaanka iyo howlwadeenada guddiga dastuurka ayaa tababaro ku aadan kor u qaadista aqoonta waxa uu uga furmay magaalada Muqdisho sida uu ku waramayo wariyaheena Maxamed Nuur Maxamed Shariifka. tababarkan ay qaadanayeen xubnaha ka kala socday gudiyada arrimaha dibadda labada aqal baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa lagu qabtay xarunta golaha aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya. ugu horeen waxaa hadlay gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga golaha aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya senator Cabdirasaaq Cismaan Jurale xildhibaan Cabdiqaadir Cosoble Cali gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay ka hadleen howlaha kala duwan ay soo qabteen qabiiradan ayagoo dhinaca kalena ka codsaday in tababarada noocan oo kale ah ay golaha shacabka iyo aqalka sareba senataradooda iyo xildhibaanadooda arrimaha dibadda ay u qabtaan kulamo. Cabdi Shire Warsame oo ahaa acting ambassador Iran meel kalena ka soo shaqeeyay waxa ku xiga halkan ninka la yiraahdo Saciid Xaaji Maxamuud oo ahaa safiir meel badan oo dibadda ah haddana ah xogeey joogtada ahaa ducaal cilmi ducaale oo ah father of the Somali diplomacy dadkii ugu horeeyay wasiir soo ahaa safiir soo ahaa haddana aad moodo kulligood inuu ka wada dhalin yar yahay odayaashan aadan ma safiirada hore iyo guddigan khubarada ah aad uga mahad celinaa wali waxaan ka codsan lahaa in protocolka ay qoraan inta ka dhigaan dawladda xafiisadeeda waaweyn oo dhan la siiyo oo ay raacaan markaas haddii xataa ay noqonayso in sharci lagu soo saaro in waajib looga dhigo dadka muslimiinta inay qaataan weli waxaan aad uga faa'iideysanaa fursaddan in madaxdeena sare ay u hel saartaan wasaaradda arrimaha dibadda protocolka inay u diyaariso. dhinaca kale guddiga la socodka dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa tababar 2 maalin soconay u qabtay howlwadeenada guddigaasi. gudoomiyaha guddiga la socodka dib u eegista hirgelinta dastuurka baarlamaanka federaalka Soomaaliya senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid ayaa kula dardaarmay howlwadeenada in ay ka faa'iideystaan tababarkan ku saabsan arrimaha isgaarsiinta. howlwadeenada guddigan ka howlgalaya qaybihiisa kala duwan in ay muxuu ahaa qaataan duruustii ay ku furshan lahaayeen shaqada iyo waajibaadka lagu furo iyo habkii ay ku furin lahaayeen iyadoo loo kala qaybin doono haddii alla idmo marka seminaarku dhammaado waaxyaha ama qaybaha guddigani 3 qaybood oo hay-adooda u kala qaybsan yahay ayay maaragtay loo kala qaybin doonaa. dhawaan ayay ahayd markii guddiga dib u eegista la socodka dastuurka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay tababar u qabteen shaqaalaha ay dhawaan qaateen guddigaasi tababarkaasi oo ku saabsanaa howlaha guddiga dib u eegista iyo la socodka dastuurka. Maxamed Nuur Maxamed Shariifka warbaahinta qaranka Muqdisho.